kani waa laanta af soomaaliga ee BBC oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar Facebooka iyo barta internetka ee ciwaankeenu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 4 Juun saacadda Afrikada Barina waa 5 galabnimo oo gow ah. qodobada aad barnaamijka dunida iyo maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho tababar ugu furay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo kuwa heer maamul goboleed. booliiska Soomaaliya oo sheegay inay bilaabeen howlgal ka dhan ah tuugada la sheegay in magaaladaasi ay ku soo badanayso. gooni ah oo hadda kale ma jirto waa un xilli kacdo sameeyaan bay ahay ayadana wixii soo keentay baaristoodii waa waxa ku go'an inay tahay burcad oo isku dayatay mooye aysan xataa dadka qaar sidii la qabto waxa arkaysa dad aan caadi yeelahayn. tobanaan qof oo kuleyl dartiis Kanada ugu geeriyooday. dawladda Itoobiya oo sheegtay in go'aanka ay maqallo uga baxday uu yahay mid siyaasadeed ee uusan ahayn mid military. jaadkii hawadayga oo 2 cisho jigjiga aan imaan sababtu maxay tahay? walaaltaadku waagi hore wuu tabnaa muddo 3 sano laakiin dhibaato weyn baanu ku qabnaa. dhibaatada weyn aan ku qabnana waxa weeyaan jaadkii 4,000 iyo 5,000 iyo 3,000 loogu soo dirayay 17,000 yuu nagu garaacayaa. ganacsatada xaafadda Islii oo sheegay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha xarun cusub oo booliis. Kenya oo ka digaysa abaar ku soo fool deegaano hoostaga Mandheera. xagee ugu daran? marka meelaha wax xun oo hadda abaaraha ay saameeyeen waa Mandera North, Mandera South, Ilafe iyo Kutulo County. meelaha roobkii aad ayuu u yaraa. waxaad kaloo aad maqli doontaan wararkii ciyaaraha. barnaamijka waxaa soo saartay Kawthar Maxamed Cabdullaahi. anigoo Axmed Mursal Xuseen ayaa idinla socodsiin doona. marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon. Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa inoo waramaysa. mahadsanid Axmed Mursal. qaramada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo gaaro 10,000 oo dad nugul oo ku sugan gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa sheegtay in wadooyinka iyo duulimaadyada bani'aadanimo loo baahan yahay in loo ogolaado inay halkaasi tagaan si gargaar loo gaarsiiyo dadkaasi, iyadoona sheegtay in ka badan 30,000 oo caruur ah ay xaalad khatar ah ku jiraan. afhayeen u hadlay xukuumadda Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay in militariga ay 3 isbuuc gudahood dib ula wareegi karaan magaalo madaxda gobolka Tigray ee Maqale haddii loo baahdo. mucaaradka ayaa isniintii la wareegay halkaasi. ciidanka ayaa sheegay in ka bixitaanka magaalada ay ahayd amaba tahay xeelada. wakiilka hay-adda UNICEF ee Itoobiya Adele Kodre ayaa BBC-da u sheegtay in hay-adda ay soo dhaweysay xabad joojintii 2 maalmood ka hor ee ay dowladdu ku baaqday, balse waxay sheegtay in loo baahan yahay tallaabo intaa ka badan lana furo marinada la marsiiyo gargaarka bani'aadanimo. The ceasefire has been declared 2 days ago, but until now we do not have yet access. xabad joojinta waxaa lagu dhawaaqay 2 maalmood ka hor, balse ilaa iyo haatan ma geli karno. wadooyin furan ma lahan oo inoo saamaxaya inaan gargaar gaarsiino. maxaa yeelay haddii aan doonayno in aan ka jawaabno baahida halkaa ka jirta, waxaan u baahannahay deeq badan in la gaarsiiyo. ilaa iyo haatanna wadooyinka ma furna. We need a large quantity of supplies, so for the moment the roads are not open. madaxweynaha Ruushka Putin ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo tallaalka qasabka ah ee ka hortagga coronavirus, balse waxa uu shacabka Ruushka ku booriyay in ay qaataan tallaalkooda. Ruushka ayaa waxaa soo food saaray kiisas badan iyadoo faraca cusub ee fayrasku si dhaqso leh u faafayo. tirada dadka ugu dhintay cudurka ee maanta la diiwaangeliyey ayaa sidoo kale muujinaysa inay aad u sareyso. Mr. Putin ayaa intii lagu guda jiray wicitaanka dadweynaha ee sanadlaha ah waxa uu sheegay inuu qaatay tallaalka Ruushka ee Sputnik V kadib markii ugu horeysay markii uu horey u diiday inuu sheego nooca tallaalka ee uu qaatay. howlgal uu booliiska caalamiga ah sameeyey ayaa lagula wareegay xarumaha internetka ee shirkad gaar loo leeyahay, taas oo lagu qarin jiray aqoonsiyada iyo halka ay ku sugan yihiin dambiilayaasha internetka.
booliiska ayaa sidoo kale la wareegay baraha internetka ee ay leedahay shirkadda WVPN waxay ugu bedeleen fariin ku wargelinaysa in dadka isticmaali jiray ay haatan hay-adaha xoojinta sharciga la wareegeen warbixinta iyo xogta ku kaydsan baraha shirkadda. howlgalka waxaa ku lug lahaa booliiska Yurub, Mareykanka iyo Kanada. hay-adda booliiska Yurub ayaa sheegtay in shirkadda aad loogu xayeysiin jiray burcadda internetka ee ku hadla afafka Ingiriiska iyo Ruushka. dhimashada dad badan oo degdeg ah ayaa laga diiwaangeliyey waqooyiga dalka Kanada, kaas oo ilaa iyo jimcihii uu ka jiray kulayl heerkiisu uu aad u sareeyo. dadka dhintay badankood ayaa ah waayeelo iyadoo dadka qaarna ay daris la ahaayeen xaalada caafimaad. Kanada ayaa talaadadii mar kale diiwaangelisay heerkulkii ugu sareeyay abid oo dalkaasi ka dhaco oo ah 49.5 Celsius. Jody Hughes waa soo jeediyaha wararka cimilada ee magaalada Calgary. It's really bad. I mean, we don't often find ourselves in situations. runtii xaalkeenu waa uu xun yahay. waxaan ula jeedaa aalaaba lama kulanno xaaladahan oo heerkulku uu galaafanayo nolosha dadka. ma aha qaybteena ka mid ah Kanada. waa inaad xisaabta ku dartaa khatarta dabka. aad ayay kuleel u tahay cimilada noocaan ah. marka waxaa jira deegaano khatar sare uga jira dabka. waxaana noo hartay 2 maalin oo aan xaaladan oo kale ku jirayno. And we have another couple of days of conditions just like this. ugu dambeynna mas-uuliyiinta militariga dalka Myanmar ayaa sheegay in ay sii dayn doonaan qaar ka mid ah dadka u ololeeya dimuqraadiyadda, taasoo qayb ka ah sii daynta maxaabiis badan oo xabsiga ku jira. militariga ayaa xabsiga dhigay in ka badan 6,000 oo mucaarada tan iyo afgembiga militari ee bishii Febraayo. hogaamiyaha xilka laga tuuray ee Aung San Suu Kyi ayaa laga filayaa amaba la filayaa in ay weli ku sii jirto xabsiga. warkii dunidana waa inaga intaa Axmed. mahadsanid fartuun Ismaaciil Axmed oo markaasi wararkii nala socodsiinaysay caalamka. halka aad nagala socotaana waa BBC. waa hagaag dhegaystayaal, aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee dowladda federaalka ah Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta tababar u furay gudiyada doorashooyinka ee heer federaal, heer dowlad goboleed iyo guddiga khilaafaadka. tababarkan oo socon doona 3 maalmood ayaa la sheegay in lagu xoojinayo awoodda iyo aqoonta gudiyada si markaasi ay ugu diyaar garoobaan qabashada doorashada dalka ka dhici doonta. wararkii ugu dambeeyey ee tababarkaas iyo hadalkii uu ra'iisul wasaaruhu u jeediyey xubnaha guddigaasi waxaa la socday oo khadka toos ugu jira wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim. axmedow, tababarku wuxuu socon doonaa ilaa 5 bisha July, markaasoo xubnaha gudiyada marka ay tababarkooda bilaabaanba ay maalmaha soo socda samayn doonaan inay iska dhex doortaan hoggaanka gudiyada doorashooyinka heer federaal, heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka. waxaana uu ahaa jadwalkii shalay ay soo saareen hogaamiyaasha Soomaaliya markii ay shirka kusoo gabagabeeyeen magaalada Muqdisho. tababarku wuxuu ka socdaa hangarka diyaaradaha garoonkii ciidamada cirka ee Afisyoone ee magaalada Muqdisho. saakii furitaankii tababarka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo la hadlay xubnaha gudiyada kala duwan ee saaka ka qayb galay tababarka. ra'iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal, heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay dhex u noqdaan tartanka doorashada ee ay qabanayaan, isla markaana ay cadaalad ka sameeyaan. waxaan jeclahay maanta inaad saxiixdaan oo akhrinaysin in qof kasta waajib uu ka saaran yahay inuusan waxyaabaha qaarkood faraha la gelin oo ka xaaraanta ah. waa garan kartaan inaan qof la nalnicin, inaan musharax la xigsan, in aan koox lala jirin. hawsha idin hortaalla keliya waa dhexdhexaadnimo iyo cadaalad iyo hufnaan inay doorashadan ku dhacdo ayaa waajib idin saaran ah. haddii qof idinka mid ah uu dan ka dhex raadiyo meelahaas, waxay keenaysaa burbur, waxay keenaysaa khilaaf, waxay keenaysaa isnaciib. annaga oo ah guddiga madasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaarahana waxaa waajib naga saaran qofkii farta lagu fiiqo, cadeymo lagu helo, in wixii waajib ah laga qaado. marka waxaa idinka codsanayaa mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad si ilaahay idinku og yahay inaad u gudataan hawshan. aniga ra'iisul wasaare ahaan musharax miihi, waa idin sheegayaa dan gaar ah kama lihi, ujeeddo kama lihi, cali mawti, faarax mawti, jaamacna mawti. hortiinaan ka caddaynaya halkan wax oo keliya oo aan wato waa inay doorashada ku dhacdaa si cadaalad ah oo hufnaan ah. axmedow, tababarka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal, heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka. waxaana uu ahaa jadwalkii shalay ay soo saareen hogaamiyaasha Soomaaliya markii ay shirka kusoo gabagabeeyeen magaalada Muqdisho. saakii furitaankii tababarka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo la hadlay xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal, heer maamul goboleed iyo guddiga khilaafaadka. ra'iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay xubnaha gudiyada doorashooyinka in ay dhex u noqdaan tartanka doorashada ee ay qabanayaan, isla markaana ay cadaalad ka sameeyaan.
axmedow ra-iisul wasaaruhu dardaarankaas ayuu u jeediyey xubnihii guddiyada ee maanta tababarka loo furay guddiyadani marka ay tababarkooda dhammaystaan waxay gudageli doonaan shaqada doorashada jadwalku siduu ahaana waxay ahayd in bisha soo socota ee July 25 la doorto xubnaha aqalka sanadka oo 54 senatar ka kooban aqalkaas waxaa doorta baarlamaan goboleedyada dalka marka laga reebo xubnaha kasoo gelaya aqalkaasi gobolada waqooyi ee Somaliland oo iyagu ay doortaan indheer garad lagu diyaariyo magaalada Muqdisho laakiin xubnaha 275 ah ee uu ka kooban yahay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa waxaa dooran doona halkii xildhibaanba 101 erdi taasoo qaadan doonta waqtiga ugu badan sida jadwalka uu ka muuqda aakhirkana 10 Oktoobar ayaa la filayaa in madaxweynaha la doorto marka la soo gabagabeeyo doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo hogaankooda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa kale oo uu intii tababarku socday markii uu hadlayay uu sheegay in aanay dhici doonin in marnaba wax laga bedelo heshiiskii 27 waa 17 September 2020 iyo heshiiskii 27 May 2021 ee dhammaan qeexayay in deegaan doorashada ay noqoto maamul goboleed kasta min 2 magaalo tirada ergadona ay noqoto 101 inkastoo toddobaadadii ugu dambeeyay dadka qaarkii ay ka hadlayeen arrintaas oo ah in dib u eegis lagu sameynayo yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan waa tahay dhegaystayaal wararkii Soomaalida waynu u soo noqon doonaaye 10 qof ayaa kuleyl dartiis ugu geeriyooday dalka Canada ayadoo mawjad kuleyl ah oo aan horey loo arag ay ku dhufatay gobollo dalkaasi ka mid ah booliiska Vancouver ayaa ku waramaya in dad kor u dhaafaya 130 qof ay kuleyl dartiis halkaasi ugu geeriyoodeen intooda badanna ay ahaayeen waayeel iyo dad markaasi xaaladooda caafimaad aanay fiicnayn haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kuleylkaas iyo khasaaraha ka dhashay waxaanu markaasi goor dhaweyd ka wareysanay wariye Duraan Xasan Yare Axmed dad kor u dhaafaya 130 qof ayaa la xaqiijiyay inay kuleylkan ku dhuftay saddexdii bari ee ugu dambeysay guud ahaan dalka Canada gaar ahaan gobolada waqooyi ay ku geeriyoodeen ilaa iyo hadda lama saadaalin kara xaaladda kuleylkuna maalinba maalinta ka dambeysa waa uu sii siyaadayaa gobolka ugu daran oo kuleylkan uu ku dhuftay ayaa wuxuu yahay gobolka la yiraahdo British Columbia magaalada lagu magacaabo Vancouver kaliya ayaa waxa ku dhintay dad kor u dhaafaya 65 qof oo kaliya waxaana premierka gobolkaasi John Horgan uu hadda sheegay in taariikhda uu yahay kuleylka ugu xumaa oo ku dhuftay guud ahaan dalka Canada gaar ahaan gobolka British Columbia iyo gobolada kale ee waqooyiga dhaca marka xaalad adag ayaa hadda lagu jiraa kuleylkana xaadirkan hadda aan kula hadlayo maalin ay noo tahay hadda subax hore ay tahay ayaa digniintu ilaa ay hadda ay socotaay la leeyahay marba marka ka dambeeya waa uu sii siyaadaya Duraanow sidee dadka soo galootiga ah ee laga yaabo inay u nugul yihiin kuleylkan uu saameeyay dawladdu waxay sheegtay dadka hadda dhintay inay u badan yihiin dadka la nool xanuunada iyo dadka u nugul kuleylka marka la leeyahay dadka u nugul waa dadka dabcan aan haysan waxyaabaha ka caawinaya in kuleylka uu ka yaraada sida air conditionada iyo waxyaabaha qaboojiyaalka oo kale dadkaan haysan waxaan la soconaa dadka soo galootiga inta badan ma haystaan facility-ga ama waxyaabaha noocan oo kale ama air conditionada ama dadka halkaas ku dhintay waxaa la sheegay dad soo galooti ah in ay ku jiraan Axmed laakiin xiriir aan la sameeyay Soomaalida halka jooga waxay ii sheegeen dadka Soomaalida ilaa hadda inay ka nabad qabaan marka arrintan waa arrin kuleylkan waa kuleyl aan kala soocaynin dadka soo galootiga iyo dadka horey u joogay wadanka laakiin dadka ugu badan oo ku dhimanayo la xaqiijiyay waa dadka aan u diyaarsanayn inay kuleylkan ka hortagaan iyo dadka xanuunada la nool Duraanow markii ugu horeysayba oo kuleyl noocaana uu goboladaas ku dhufto taariikhda sida Canada ay sheegtay waa markii ugu horeysay oo kuleyl noocan oo kala ah uu ku dhuftay dalka Canada madow kuleylku hadda waxa uu marayaa 49.6 centigrade buu marayaa taariikhda waxa la sheegay Canada markii ugu badnay inay gaartay 45 centigrade marka waa markii ugu kulula ama kuleyl noocan oo ugu daran uu ku dhuftay dalka Canada sida la xaqiijiyay kuleylkana Axmed oo maahan Canada oo kaliya sidoo kale gobollo kale oo Mareykanka ayuu ku faafay waa arrin ka dhaxaysa oo hadda waxa la leeyahay Canada iyo Mareykanka labadaba waaga waa tahay Duraanow maxaa dadaal ah oo dawladda iyo dadku ay wadaan maxaa la filan karaa maalmaha soo socda
dadaal xoogan ayaa dawladdu wadaa. Gurmad ayaa gaaray gobolada inta badan dhibaatadana ay ka dhacayso. Hay'adda la yiraahdo Canadian Red Cross-ka ayaa meelo kala duwan ka furtay halkaas. Qaybaha kala duwan ee dhakhaatiirta ayaa lagu wacyigeliyay inay halkaas gaaraan. Sidoo kale gobolka hadda aan kala hadlayo ee Alberta oo asaga laftigiisa digniinta iyo kulaylku aad uga jiro, waxa wadooyinka meelaheeda ama geesaha wadooyinka oo dhan la dhigay meelaha biyaha lagu dadka lagu siinayo oo lacala haddii qof asagoo haraadsan halkaa uu soo istaago inuu helo biyo qabow. Marka dadaal xagga shacabka iyo xagga dawladda ayaa aad u socda oo guud ahaan dalka Canada ka socda, gaar ahaan gobolada waqooyiga. Maalmaha soo socda waxaa la leeyahay sida ay saadaalinayaan qolada cimilada hawada, waxaa laga yaabaa in kulaylkan uu ka sii daro oo maalmaha soo socda ay uu sii siyaado, laakiin lama garanayo. Dabcan maantadan aan kula hadlaya ayaa la sheegay inay noqon doonto maalinta ugu adag ee kulaylka. Marka saamaynta maanta ay yeelan doonto ama maalmaha soo socda ay yeelan doonaan ilaa hadda lama garanayo. Axmed, kaasi waxa uu ahaa wariye Duraan Xasan Yare oo khadka telefoonka igu warramayay. Haddaba kulaylkaas xad-dhaafka ahi xiriir ma la leeyahay isbeddelka cimilada? su-aashaas iyo kuwo kale waxaanu wax ka weydiinay Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ku xeel dheer arrimaha biyaha, deegaanka iyo isbeddelka cimilada. khadka telefoonka ayuu igu warramay. walaalkiis kulaylkan ba'an ee Canada dad badan ay dhinteen oo gaaray heerarkii ugu sarreeyey oo runtii 49.6 centigrade oo heerkul ah. waa heer aad u sarreeya oo aan hadda ka hor aan la arkin, waxaana muuqata in dhowr jeerna saas hadda berihii ugu dambeeyey ay dhacday. marka arrintaasi waxa ay tilmaan cad oo muuqato ay ku muujinaysaa in heer kulka cimilada adduunyada uu isbedelay, isbedelka cimilada darteed oo ay kor u kacday heer kulkii guud ahaan adduunyada oo idil. ayay taasi waxay ka tahay calaamad cad oo muujinaysa oo markaasna keenaysa in bini aadamku uu kusoo foor leeyahay cabsi kamid a cabsiyada ugu waaweyn oo kaleeto laga dareemayo, iyada oo weliba ay Canada iyo wadamada mataqaanaa Maraykanka iyo Maraykanka waqooyi guud ahaanba ay yihiin wadamo warshado badan leh, markaana hawada u diray qiiq aad u badan oo runtii mataqaanaa isbedelka cimilada dhalin kara. taasina waxa ay weliba cabsi gaara ku keenaysaa in maadaama Canada ay tahay dalalka dunida barafka leh ay tahay, barafkaasi hadduu dhalaalana markaasina ay kor u kacayso maxaa la dhahaa heerkii baddu ay joogtay, taasna ay saameyn ku keeni karto dhulalka xeebaha ah ee markaasi ku yaala waqooyiga America. waa tahay ma la sii ogaan karay oo ma laga gaashaaman karay in kulayl noocaana oo kale uu dhaco? beri hore ayaa la sheegay in isbedelka cimilada uu macnaha kor u qaadi doono heerkulka adduunyada, oo wax la sii ogaa oo wax lagu xisaabtamayay, laakiin waxaa adag in la ogaado gaar ahaan meesha markaasi ay cimiladeedu ay kor u kacayso macnaha heerkulka ay leedahay ayaa adag in la ogaado mooye waa la og yahay. duniduna way ku xisaabtamaysaa, caalamka oo idilne waa lala socdaa in isbedelka cimilada ahi uu yahay xaqiiq jirta oo ay bini aadamku sidee wax looga qaban karaa marka ay timaado in heerkulku sidaan u kaco ama cimiladu ay sidaan isu loo celiyo macnaha heerkulku inuu dib loo celiyo waa arrin aad u adag, laakiin waxaa laga hortegi karaa in heerkulkaasi uu kasii daro oo weliba sanadaha soo socda iyo sanadaha kusii xigo iyo tobaneeyaha sane soo socda iyo macnaha maxaa la dhahaa qarniyada soo socdo in bini aadamka uu kasii fikiro si aysan u keenin in cimiladaasu ay faraha ka baxdo oo markaasuna ay keento saameyn aan dib loo saxi karin. ugu dambayntii marar badan baa laga shiraa isbeddelka cimilada, shirar badan baa la qabtaa. marka ma jiraan guulo la taaban karo oo wax ku oola oo la odhan karo guulahaasaa laga gaaray isbeddelka cimilada? way jirtaa wadamo fara badan in ay hoos u dhigeen guulo dhowr oo la gaarina way jirtaa, laakiin guusha ugu weyneyd in la gaaro waxay ay saameyn ku leedahay dhaqaalihii bay saameynaysaa, macnaha warshadahaasi qiiqa ay tuurayaan iyo baabuurta tirada badan iyo macnaha maxaa waa arrin dhaqaale la xiriirto. dhaqaalahuna markii la galana waa arrin siyaasadeed, marka waa waxyaaba isku xirxiran oo runtii ay adag tahay in bini aadamku inuu go-aan gaaban ka gaaro islamarkaana saameyntiisa u arko. kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ku xeel dheer arrimaha biyaha, deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo khadka telefoonka iigu warramayey. haddii aynu eegno dhegaystayaasha qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah Yaxye Sarcade Sheekh Xuseen oo ka soo qoray Caabud Waaq. waxa uu yidhi dadka gaaraya 10 qof ee ku dhintay dalka Canada una dhintay kulaylka ba'an runtii waa arrin walaaceeda leh, waxaana ugu baaqaya cid kasta oo gacan ka geysan karta inay isu taagaan oo markaasi ay ugu horeyso dowladda Canada. Cabdixareed Maxamed Haaruun waxa uu ka soo qoray Luuq Ganaane. waxa uu yidhi dadka kulaylka dartiisa u geeriyooda dalka Canada runtii waa arrin murugadeeda leh, waxaase dowladda Canada la gudboon inay dadka kale markaasi ku sugan meeshaasi ay u samayso gurmad degdeg ah. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ee dhegaystayaasheenna. halka aad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee BBC.
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa hagaag dhegaystayaal iminkana Itoobiya warar kale inoo soo socda waxaa ka mid ah jaadkii hawadayga oo 2 cisho jigjiga aan imaan iyo sababta markaasi arrintaasi keentay. haddaba aynu eegno Itoobiya xukuumadda Itoobiya ayaa sheegtay in ay go'aanka ay ka gaartay in ciidamadeedu ay ka soo baxaan caasimadda gobolka Tigreega ee Maqale uu ahaa mid siyaasadeed ee uusan ahayn mid military. warkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya tan iyo markii TPLF ay dib ula wareegtay gacan ku haynta magaalada ayuu ku sheegay in ciidanka haddii amar la siiyo ay toddobaadyo gudahood dib u qabsan karaan magaalada Maqale sidii ay sameeyeen bishii November. waa siduu hadalka u dhigay kooxda TPLF ayaa horey u sheegtay in magaalada iyo deegaanada kaleba ay awood military markaasi dib ugu qabsadeen. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haysa Kawthar Maxamed Cabdullaahi. dagaalka ayaa u horseeday inuu hoos u dhaco dhaqaalaha waddanka Itoobiya iyadoo 8 bilood ee ugu dambeeyay in ka badan $2 bilyan lagu maalgeliyay ciidamada ku sugnaa gobolka Tigray. lacagtaas oo inteeda badan ay ku bixiyeen dhanka gargaarka waa sida ay dawladdu sheegtay. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Ridwan oo maanta la hadlay wariyaasha ayaa intaasi ku daray in colaadaasi ay ku nafwaayeen dad badan oo ka soo jeeda meelo kala duwan oo ay ku jiraan dad rayd ah. wasiirka ayaa ku celceliyay sheegashadii dawladda ee ah in dagaalkii Tigray la soo afjaray bishii November inkastoo mucaaradka Tigray ay halkaasi ka wadeen dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ah taas oo ku eedeeyay wasiirku inay shacabka ka dhiganayeen gabaad. wasiirka ayaa sheegay in haatan maadaama ay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ay isaga baxeen gobolka Tigray cadaadiska beesha caalamka ee joojinta dagaalka iyo in gargaar la gaarsiiyo gobolkaasi aysan mas'uuliyadeeda lahayn Addis Ababa. wuxuu intaa ku daray wasiirka in haddii ciidamada federaalka Itoobiya dib loogu amro inay halkaasi qabsadaan inay ku qabsan karaan toddobaadyo gudahood sidii kol horeba ay uga qabsadeen TPLF bishii November ee sanadkii tagay 2020 kuwaasoo ka xoog badnaa kana abaabul wanaagsanaa sida ay haatan yihiin. waa sida uu hadalka u dhigay. TPLF ayaa sheegtay maalmihii la soo dhaafay in gobolka Tigray ay ku qabsatay awood military oo ay ku muquuniyeen kuwii halkaa ku sugnaa. Ridwan ayaa intaa raaciyay in 70% gargaarka bini'aadanimo ee la geeyay gobolka Tigray ay bixisay dawladda federaalka Itoobiya iyadoo u turaysa shacabka dagaalka halkaasi ku qabsaday. aad ay u mahadsan tahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi. isla wararkii Itoobiya ayaynu ku jirnay ganacsatada jaadka ee magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya qiimaha jaadka oo maalinta ka dambaysa sare u sii markaasi kacaya iyadoo maanta ay tahay maalintii labaad ee markaasi uusan imaan qaadka hawadayga markaasi uusan magaaladaasi tegin. ganacsatada jaadka ee Jigjiga ayaa sheegaya in jaadka Itoobiya ee loo dhoofiyo Soomaaliya uu saameyn ku yeeshay ganacsigooda ayagoo marar badan arrintaasi kala hadlay ganacsatada Oromada ee ayagu jaadka u soo dhoofiya balse markaasi aanay ka hoos qaadin arrinta ayada ah iyo inay jaadka qiimihiisa wax ka bedelaan. waxaa arrintaasi inooga warantay Hibo Abiib Cabdi oo ka mid ah ganacsatada jaadka ee ayagu markaasi qaba cabashada waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ay ka cabanayaan. walaal jaadku waagii hore wuu tabnaa muddo 3 sano laakiin dhibaato weyn baanu ku qabnaa. dhibaatada weyn aan ku qabnana waxa weeyaan jaadkii 4,000 iyo 5,000 iyo 3,000 loogu soo dirayay 20,000 yuu nagu garaacayaa. waxaa leeyahay waxaan samaynaa waan garan laanahay balarkii jaadka haddaan 1,500 siino iyo haddaan ku riyaal siinaba xaqii nagama noqonayo. raggii Soomaalida lacagtii waan ka dhammaynay. waxaan rabnaa markaa dee in jaaley oo waxaan ku yidhi ilaa 30 aan ku wada fadhinaa hadda meesha. maxaa keenay Hibaay in jaadku uu sidan u qaaliyoobo? walaal waxa weeyaan waxaa keenay muddada 3 sano aba inta xukuumadda cabdi cabdi ilaahay dhacdayba dabagal la'aanteed weeyaan dabagal baan jirin. dabagalna laguma hayo naa kasta qiimahay doonto sida loo waday ee soo siisanaysay yaan hawadii annagiiba hawadii isku geynay. Oromadina way nooga soo kici lahaday meel aliya meesha doontay naga geynaysaa qiimihii jaadka. waa tahay bal waxaad faahfaahin ka bixisaa markii hore kiilowga jaadka ah qofkii aan la socon imisuu ahaa haddase imisuu maraya? walaal waagii hore waxaa la siin jiray 4,000 5,000 jaadka madhabka ee imika 21,000 loogu soo diro wuxuu ahaa 5,000 buu ahaa. waa tahay marka ma kala hadasheen ganacsatada uu ganacsigu idinka dhexeeyo oo marka horeba jaadka idinka idiin soo dhoofiya? walaal waxa weeyaan
waxa weeyaan dabagal la-aan weeyaan taan maxay Soomaaliya jaadka loo qaadaya waxaan ku yiri dollar bay lacag soo siisanayaan jaadkiyo haddaan nin qiimaha nin ku qaadanay qiimaha dad nagaga qaadanayaan haysanaa bayna leeyihiin eega sodomeeyo qofan meesha ku fadhinaa waxaan sameynaa waan garan laanahay waxaan ka helaynaana ma jirto lacagaha iyaga waanu ku khasaarinay naagtii dhul lahayd iyo tii dahab lahayd ba way gaday waan deymaysanahay in 7 milyan baa lagaga leeyahay hawaday gudaheega waxaan xal moodnay intaan muddo 7 joojino inuu jaadkii laga jaro markii horeba waxaa la sheegaa in magaalada Jigjiga qaadkeedu uu ka qaalisanaa meelaha qaar sida Addis Ababa oo kale ama Hargeysa oo kale markaynu eegno deegaanada Soomaalida marka soo lama oran karo markii hore inaad ka hadashaan bay ahayd arrintan may walaal waa la iska lahay waagi hore jaadku uu noo jabnaa 3,000 eega jaadka 21,000 galay 3,000 iyo waxa la siisanayay 4,000 yaa la siisanayay jaadka waagi hore aad buu noogu jabnaa laakiin imika dabagal la'aan oo naag kasta waxay doonto siinayso naag kasta waxay doonto ay soo siisanayso yujaadka hawadana yuu noogu galay waa tahay waagii hore jaad qaali oo loo keenayay ma jirin sababaha qaadka uu u qaaliyoobay iminka oo idinka uu intaas idinkugu tegay ma waxaa sabab u ah in iminka Soomaaliya qaad badan loo dhoofiyo Soomaaliya waxaan leeyahay abaanadayadu waxayna leeyihiin dollar baan soo siisanaynaa haddaan qiimaha jaadka naga siisanayn 17,000 17,000 baa ugu yar jaadka kiilogii 3,000 iyo 4,000 loogu keenayay waxaan sameynaan garan laanayn adeere idinka ka ganacsata ahaan maadaama ganacsato kale oo qaadka idin soo dhoofisa uu xiriir idinkala dhaxeeyo inta u tagteen oo la fariisateen ma tiraahdeen war qiimahaasi naga daaya ama intaasin wax ku kala gadano waanu la hadalnay kuwii Oromiya joogay waanu la hadalnay waxaanu ka odhanay qiimihii jaadkiisu ma bixinaya maxaanu samaynaa waa tahay hawl noo taala annaga ma ahayna haddaad ku gadan kartaanna waad ku gadanaysaan haddii kalena shaqo kalaanu haysanaa bayna leeyihiin hadda haddii xaal halkaasi marayo maxaa tallaabo ah oo aad qaadaysaan ka ganacsato ahaan idinku waxaanu ku hanweynahay inaanu jaadkii dayno oonu faraha ka qaadano jaad taban oo wadaniya oo akabaabiga inaanu iibinaanu ku hanweynahay hadduu ilaahay raalli ka dhigo ilaa 3 qof aanu ku fadhinaa in yar baana diidan intaa yareena diidana oo waliba dee fikirkaan isku yar diidanahay intaasina iyagu waa ilaa dhowr qof oo 5 qof iyo 6 qof gaadhaysa weeyaan iyaguna intaa waanu sugaynaayo hadday noo imanayaanba waxaa jira in Kenya jaadkeedii iminka la leeyahay waxaa la geeyaa deegaano ka tirsan Ethiopia maadaama Soomaaliya ay joojisay suuq kale halkaa ma idinkaga furan yahay halkaa ma laga yaabaa in aadaan ma aadayno jaadka Ethiopia maxay kilalka deegaanka ka baxa oo kabaabiga maanu rabnaa inaan iibino hadduu ilaahay raalli ka dhigo ma rabna maxay jaad qaali oo 22,000 oo anagu 24 saac ku khasaaranay inta xaqiisana loogu soo diro kama dhigayno taasi waxay ahayd Hibo Abiib Cabdi oo ka mid ah ganacsatada jaadka oo markaasi ka cabanaya sicirka oo markaasi kor u kacay waxa ay ugu warramaysay khadka telefoonka ee Jigjiga hagaag haatanna ganacsatada xaafadda Islii ee Soomaalidu ay u badan tahay ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in ay ballaarinayaan dhismo xarun booliis oo ku taal xaafaddaas si markaasi ay uga qayb qaataan ammaanka xaafadda ayagoo sidoo kalena sheegay in ay gacan siinayaan ciidamada ammaanka si loo horumariyo amniga xaafadda waxaa markaasi arrintaasi aynu ka waraysanay Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha guud ee guddiga ganacsatada ee Soomaaliyeed ee xaafadda Islii khadka telefoonka ayuu igu warramay howshaan aan qabanayno waxaa waaye police station waxaan rabnaa inaan maarata xaafadda aan aan samayno oo aan gacan weyn ka geysano waa wax loo baahan yahay baahidana waxa keentay xaafadii waa ballaaratay Soomaalida maarata meel u dhow oo ay ka heli karaan police stationka iyo amniga iyo ganacsiga waa isbarbar socdaan marka maadaama amni badan loo baahan yahay in police station fiican oo qiimo leh inaan ka dhisno xaafadda ayaan go'aansanay oon gacan ka geysano ganacsatada haddaan nahay barnaamijkaasna waqti badan aan kasoo fikiraynay inaan maarata wax ku yeelano wax qiimo leh weliba amniga annagoo la shaqaynayna dowladda allaamaha amniga inaan kala shaqayno police stationkaas aan samayno aan wixii baahidii amniga aan ugu baxno xaafadda guud ahaan ay qabtay dabcan waxaad tiri xaafaddii waa ballaaratay xageed ka dhisasaan marka xaruntan booliska waxaan ka dhisaynaa police post ay ahaan jirtay marka hore Bumwani ayay kasoo horjeedaa hadda full police station baa laga dhigay taasaa marka waxay leedahay dhul oo lagu ballaarin karo xafiisyadeedii iyo modern police station inaan ka dhigno meesha gudaheedii ayaan ka dhisaynaa hadduu ilaa yidhahdo dhulkini iyo wixii dhan waa diyaar annagoo iskaashanayna dadka laga soo doortay xaafadda uu horkacayo xildhibaankeena Yuusuf Xasan inaan maarata aan meel police station aan ka dhisno waa tahay kharashka ku baxaya hawshaan waa imisa
qarashka weli qiimeyn sax waa sugaynaa usbuucan gudaheeda ayaana la siin doonaa laakiin qarashka ku baxay hadda totalkeeda hadda ma hayo laakiin waa muddo gaaban aan ku ogaan doonaa laakiin waa wax inaan sameyno naga go-an oo dadka dhan baahidooda aan isla garanay inaan wax ka qaban baahida hadda keentay ma wax la xidhiira falalkii ammaan darrada ee dhowaan dhacayeyba mise waxaa jirta baahi kale oo qarsoon oo aad noo sheegi kartid baahi kale oo qarsoon ma baahi guud ayaa jirto waxa waaye xaafadda saad u ogtahay ganacsigeedii iyo dadkeedii iyo populationkeedii iyo wixii dhan waa bateen markii ay dad maarata ganacsiga u ballaarto amni waa wax muhiim ah oo ganacsiga la socdo marka baahi oo hadda tan oo amni darrada hadda socota keliya ay keentay ma waa wax muddo dheer aan ka fikiraynay in police station oo xaafadda u khidmeeya oo dadka ay meel dhow xaafadda gudaheedana aad aan ugu fogeyn inaan helno muddo dheer aan ku fikirsanayn marka barnaamij oo wax noo qarsoon oo aan leenahay baahi kale ayaa baahidan culeyska hadda jira darteed maaha waa wax mustaqbalka aan u baahannahay oon laga maarminaan istusnay cumarow in xarun booliis la dhiso waa dan guud dabcan inta badanna waxaa shaqadaasi qabata dowladda marka maxaa keenay in ka ganacsato ahaan aad hawshaan haatan u istaagtaan danta guud dowladda waa qabataa mar walba waxaad taqaana waxaad og tahay waxyaalaha guud waxaa marmar aad aragtaa boorar waxaa iska kaashaday dowladda iyo guddiga ganacsatada sida dadka maamulka ay leedahay hindida oo kale annagana sida oo kale inaan maarata dad ganacsanayo oo muuqdo oo waddanka xaquuq ku leh oo ka ganacsanaya maayaan wax process badan bay soo maraysaa laakiin haddaan nidhaha annagaa diyaarsan dowladdana wax bay nala qabanay annagana wax baan ka qaban karnaa waxaan ognahay in xaafadaha kale ee nairobi ay leeyihiin dad shacab ah oo markaas booliiska ammaanka kala shaqeeya oo gacan ka siiya waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo community policing idinkuma leedihiin arrintaas community policing waa leenahay waa la shaqeynaa amniga guddiga annaga mar walbaba wixii xaafadda haddii hataa waxaan sameynay muddo dheer aan kasoo shaqeynay in ay boolis kale meel kale intay ka imaadaan xaafadda ay waxay raba ay ka samayn karin hadda waxaan u sameynay nidaama wixii kor haddii amni darra mise qof loo baahan yahay jirto in nala wargeliyo wixii ay qabsanayaan oo mase amni darre keena ay hawshaas keliya ku ekaadaan ay maarata wixii hore oo dadka laisku xirxiri jiray iyo boobkii badnaa iyo waxaas dhan waa ka shaqaynay oo waa la shaqaynaa dowladda amnigeedii ugu dambayntii goormaad rabtaan inaad hawshaan soo gebagabaysaan oo xaruntaan aad dhistaan hawshaan waxay hadduu ilaa ihahdo sanadkan hadda waa bilownay hataa usbuucan waa ka shiraynaa inaan maarata wixii saan u dhaqangelin lahayn laakiin muddo sanadkan gudihiisa inaan maarata wixii aan soo bandhigno haddana idin idaacadaha u yeerno dowladda amnigeed iyo dadkii aan maarata u yeerno ayaan rabna haddana xaflad fuul dhagax dhiga inaan sameyno hadduu ilaa ihahdo kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee guddiga ganacsatada soomaaliyeed ee xaafadda islii ee magaalada nairobi oo khadka telefoonka igu warramayey haatanna dhegaystayaal waxay markaasi maraysaa saacaddu 5:32 waxay qadar 2 daqiiqo ah dhaaftay markii aan idinkugu celin jirnay wararka caalamka kuwooda ugu doorkarnoon fartuunaan markale ka codsado qaramada midoobey ayaa sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo gaaro 10,000 oo dad nugul oo ku sugan gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. Hay'adda qaramada midoobey oo qaabilsan caruurta ayaa sheegtay in wadooyinka iyo duulimaadyada bini'aadanimo loo baahan yahay in loo ogolaado inay halkaasi tagaan si gargaar loo gaarsiiyo dadkaasi iyadoona sheegtay in ka badan 30,000 oo caruur ay xaalad khatar ah ku jiraan. madaxweyne Putin ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo tallaalka qasabka ah ee ka hortagga coronavirus balse waxa uu shacabka reer Ruushka ku booriyay inay qaataan tallaalkooda. Ruushka ayaa waxaa soo food saaray kiisas badan iyadoo faraca cusub ee fayraska uu si dhaqso ah ugu faafayo halkaasi. Tirada dadka ugu dhintay cudurka ee maanta la diiwaangeliyay ayaa sidoo kale muujinaysa inay aad u sarreyso. howlgal uu booliiska caalamiga ah sameeyay ayaa lagula wareegay xarumaha internetka ee shirkad gaar loo leeyahay taasi oo lagu qarin jiray aqoonsiyada iyo halka ay ku sugan yihiin dambiilayaasha internetka. booliiska ayaa sidoo kale la wareegay baraha internetka ee ay leedahay shirkadda WVPN waxay ugu bedeleen fariin ku wargelinaysa in dadka isticmaali jira ay haatan hay-adda xoojinta sharciga la wareegeen warbixinta iyo xogta ku kaydsan baraha shirkadda. ugu dambeynna mas'uuliyiinta militariga dalka Myanmar ayaa sheegay inay sii dayn doonaan qaar ka mid ah dadka u ololeeya dimuqraadiyadda taasi oo qayb ka ah sii daynta maxaabiis badan oo xabsiga ku jira. militariga ayaa xabsiga dhigay in ka badan 6,000 oo mucaarad ah tan iyo afgambigii militari ee bishii Febraayo. hogaamiyihii xilka laga tuuray ee Aung San Suu Kyi ayaa la filayaa in ay weli ku sii jirto xabsiga.
fartuun ismaaciil axmed aad ayay u mahadsan tahay wararkii caalamka ayay mar kale inoo ku celinaysay halka aad nagala socotaanna waa b b c dhegaystayaal qodobada kale ee inoo soo socdana waxaa ka mid ah waxaan ku sheegi karaa howlgalku inuu guud ahaan ka socdo daafaha dalka gaar ahaan magaalada caasimada iyo nawaaxigeeda howlgalkaas xitaa afkooyu ka socdaa wuxuu ka socdaa maxaa la yidhaahdaa magaalada muqdisho degmooyinka gobolka banaadir waa booliiska soomaaliya oo sheegay inay bilaabeen howlgal ka dhan ah tuugada la sheegay in magaaladaasi ay ku soo badanayso balse marka hore dhegaystayaal sidii wararka caalamka aad ku maqlayseen madaxweyne putin ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo tallaalka khasabka ah ee looga hortegayo fayraska corona hase ahaatee waxa uu dadka ugu baaqay in ay istallaalaan mr putin ayaa hadalkan ka sheegay khudbaddiisa sannadlaha ah isagoo sheegay inuu qaatay tallaalka ruushka ee sputnik v hore ayuu u diiday in uu sheego nooca tallaalka ee la siiyey farax lamaane ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ruushka ayaa diiwaan geliyey bishii agoosto ee sannadkii hore tallaalkii ugu horreeyey ee dunida ee loogu talagalay in looga hortago cudurka koroonaha kaasoo ah tallaalka la yidhaahdo sputnik v laakiin in tallaalka la aamino ayaa waxa ay noqotay dhib weyn oo ka jira magaalada moscow iyo magaalooyin kale oo ruushka ku yaalla moscow ay ku nool yihiin ilaa iyo 12 milyan oo qof ayaa 1.3 milyan oo keliya la tallaalay waxaana tirada dadka la tallaalay ay ka hoosaysaa boqolley ahaan marka loo eego dalalka kale ee qaaradda yurub isaga oo ka hadlayey kulan ay xukuumaddu yeelatay maanta ayaa valadimir putin waxa uu ka codsaday dadka ruushka in shakiga ay iska saaraan tallaalka ruushkana uu yahay kan ugu bedqabka badan looguna kalsoon yahay dunida isaga qudhiisa ayaana waxa uu qirtay inuu qaatay tallaalka waxaan u malaynayaa inaan u baahanahay in la ilaaliyo ilaa inta suurtagalka ah sidaasi darteed waxaan doontay in laygu tallaalo tallaalka sputnik milatarigu waxay isku tallaalayaan tallaalka sputnik intaasi kadib anigu waxaan ahay hogaamiyihii putin waxa uu intaa ku daray in xanuun badan uusan dareemin balse uu xanfaf yaro dareemay markii aan qaatay qaybta koowaad waxba ma dareemin 4 saacadood kadib meesha layga duray ayaan ka dareemay xanfaf midka labaad ayaa laygu duray isla maalinkii saqdhexe ayaan cabbiray heerkulka jidhkayga waxaanu ahaa 37.2 waan seexday markii aan maalintii labaad soo kacay waan cabbiray heerkulka jidhkayga waxaanu noqday 36.6 dad badan oo ruush ah waxa ay rumaysan yihiin in lagu degdegay horumarinta tallaalka sputnik si moscow ay u qurxiso siyaasaddeeda arrimaha dibadda tallaalka sputnik mooye waxaa kaloo ruushiya ay soo saartay 2 tallaal oo kale oo la kala yidhaahdo epivac corona iyo covivac qof walba oo mooska joogana tallaaladaas waxa uu ku heli karaa si bilaash ah ruushku waxa uu qaaday ku dhowaad dhammaanba xayiraadaha la xidhiidha cudurka koroonaha dad badan oo ruush ahna waxa ayba diidan yihiin inay afsaabka xirtaan marka ay joogaan goobaha bulshada ka dhexeeya ama ay raacayaan gaadiidka dadweynaha maamulayaasha caafimaadka ee ruushkana tiradii ugu dambaysay ee dadka uu haleelay cudurka koroonaha ayaa waxa ay ku tilmaameen inay ka badan tahay 5 milyan oo kiis iyadoo dhimashaduna ay marayso 119,000 oo qof farax lamaan aad ayuu u mahadsan yahay faahfaahinta warkaas ayuu inala socodsiinayey dhegaystayaal wararkii soomaalida aynu dib ugu noqonee wararka aan ka helayno magaalada muqdisho ayaa sheegaya in tuugo hubaysan oo qaarkood ay ku labisan yihiin dareeska ciidamada bilayska ay ku soo badanayaan magaalada islamarkaana ay duhur cad moobilada iyo agab kaleba ka furanayaan shacabka magaalada iyadoo saacadihii u dambeeyeyna ay soo baxayaan warar sheegaya in booliisku ay arrintaasi dad u xirxidheen haddaba faahfaahinta arrintaas iyo waxa ay booliisku ka qabteen shaqaaqooyinkaas ayaannu ka waraysanay afhayeenka booliiska soomaaliya sidiiq aadan cali doodisho oo markaasi khadka telefoonka igu warramay marka horena aan weydiiyey bal in uu nooga warramo in waxani ay yihiin wax cusub iyo in kale waa mahadsantihiin b b c dhacdooyinkan burcadan mobeelada ku hubaysan oo mobeelada dhacdaa hubaysan sheeko cusub weeye waana sheekada 2 weeks gudahood aada usoo baahday marka barnaamij aada u ballaaftay noqotay marka waxaan u baarnay sababta waxaana ay u yimaadeen iyo sababta ay usoo bateen iyo haddii ay yihiin wax dee ujeedooyin kale ay ka dambeeyaan marka waxaa noo caddaatay inay tahay kacdo cad
magaalooyinka caalamkana dee telekoomada dambiyada dhaca haddaad wax ka hayso burcad marar ay saan oo kale kacdo mar u sameeyaana jira ama la isku daydo dad aan hore burcad u ahayn ay faraalkaan galaan dadna waa dad caadi isdagaala marka sabab gooni ah oo hadda kaliftay ma jirto waa un xilli kacdo sameeyaan bay ahayd iyadana wixii dee sababta keentay baaristoodii waxa ku ogaanay inay tahay burcad oo isku dayatay moogiye aysan xataa dadka qaar dambiyada la qabto waxaad arkaysa dad aan caadi isdagaal ahayn oo markii ugu horreysa ay tahay marka dhammaantood waxaa jira qaab aan ula dagaalamayno insha allah waa tahay maadaama sidiiqow ay yihiin wax cusub oo hadda soo kordhay oo aysan horey u jirin arrimahan la xidhiira tuugada maxaad ka qabateen ka boolis ahaan niyahow horta tuugadu faldambiyeed ka mid a faldambiyeyada caadiga ah oo dhaca sababta hadda kaliftay inay soo kordhaanna dee sidaan kuu sheegay caadooyin waxaa jira burcadu hadda marbakiisa kordha ayaaba dhexdaas waad ogeed kuftiyada ayaa kordhi jiray howlgalladii la sameeyey iyo dagaalkii laga sameeyey awgeed oo talafalasada ilaahay kaashiga shacabka aanan leenahay ay xoogaa hoosu dhacya ku yimid walow weli ay jiraan kufsiyo dhacaya ayaa haddana dhanka kale waxaa hadda soo isbaxaya kororka dambiyada la xiriira dhaca mobeelada marka iyadana howlgalkeedaa socda waa la socoteen kuwii xala lasoo dhigay waa la socoteen maantay kuwo kaloo lasoo qabtay ilaa caawa berri inta ka dambaysa iyo maalmaha lagu soo foodlaba waxaa jirta waxaa gobolka banaadir ciidanka booliska soomaaliyeed iyo haylaha kale ammaanka waxaan wadnaa howlgallo lagu sifaynayo burcadka hubaysan ee mobeelada dhacda marka howlgal qorshaysan oo sifaynta burcadka ah magaalada ka bilownay howlgalkaasna ilaa aan kasoo afjarno burcadda noocaan ee falalka noocaana soo caaday way sii socon doonaan ilaah idinkiisana dee maalmaha soo socda in aan yarayna ayaan rajaynayna waana la soo wadaagi doonaa tirakoobka xajmiga iyadu ay gaareen xilliyada u badnaayeen iyo daraasadahaan ka samayna ma jirtaa tiro aana la wadaagi kartid oo ah dad aa usoo qabateen dembiyadan dambiyadu tirakoob guud kaama siin karo maxaa yeelay howlgalku waa socdaa howlgalku ma soo afjarmin markii de howlgalku soo afjarmo cadid xadidan oo wakti ah ayaan ku dhihi karaa 20 cisho lasoo dhaafay ama 10 cisho lasoo dhaafay ama asbuucii lasoo dhaafay intaasoo dembi ah oo eedeysanayaal dembiye noocaas ah ukacayoon gacanta kusoo dhignaa jira kuwana baaristooda socda laakiin waxaan ku sheegi karaa howlgalku inuu guud ahaan ka socdo daafaha dalka gaar ahaan magaalada caasimada iyo nawaaxigeeda howlgalkaas inta afkooyu ka socdaa wuxuu ka socdaa maxaa la yidhaahdaa magaalada muqdisho degmooyinka gobolka banaadir xalay waad ogeed kuwii lasoo qabtay odaakshi hodan iyo maanta kuwo kale hodan lagu qabtay laba burcad oo gaadiidkooda watay howlgallada noocaasu ilaa xad ay sii socon doonayaan darkeeley hadda waxaan kula hadlayo waa ka socda howlgal noocaasa ka socda marka waa howlgal guud oo sifaynta burcadda dhaca mobeelada geysata qorshahan waa qorshe dhamaystiran waxaana daba socda sida dee mobeeladooda dabkaysi uga heli lahaayeen ilaa iyo intaan hadda gacanta ku dhigna iyadana waxaa xiriirka dadweynaha iyo goobaha xiriirka soo dhigi doonaa oo dadka ugu sheegi doonaa halkii ugu soo hagaagi lahaayeen mobeelada aan qabanay sidii qofka mobeelkiisa ugu helo ugu dambayntii intaa waxaa la yidhaahdaa howlgal baa socda haatanna howlgal baa dabcan socda weli ammaanka magaalada muqdisho ma fiicna oo har cad baa dadka la dhacayaa ama mobilada laga furanaya marka maxaa guulo ah oo la taaban karo oo ilaa iyo hadda aad nala wadaagi kartaa oo arrintaas iska gaarteen waa mahadsanta walaalow waa runtaa weeye qofkii aan ammaanka wax maxaa la yidhahdaa ka fahamsiinan aqooninna way la noqonaysaa dee hawsha howlgalna waa socdaa waxna waa dhacayaan laakiin isku jihana looma socdo dee howlgalka socdana waa howlgalkii la dagaalanka burcadda howlgalladii kale sanadseeda u socdaan marka dee anagu bulshadeenna qasab maaha tilaabo kastoo aan qaadno inaan dadka ugu faanno maraan waxaanan qabanay laakiin waxaa muhiima waxay bulshada walaac ka samayso oo walaac bulsho aan u aragno inaan ka howlgalno islamarkaana dadka u bandhigno marka kan wuxuu uga duwan yahay kuwii horeeto waxa weeye kow waktigaana ah waktiga la joogo oo howlgalkiisa loo baahan yahay maxaa yeelay tilkoobyada dambiyada aan helnay oo soo gaaray dalabiyada ciidanka booliiska ah ayaa aada u kordha ku saabsan dhaca teleefonada telefonka 991 dadka kusoo ashtakooday oo soo gaaray teleefonada aada u badan yihiin marka dhacaha noocaas ah ayaa sabab u ah in howlgalkeedii hadda uu socdo marka howlgalku wuxuu ku fac yahay mar walba hawsha soo kororta ku fac yahay marka hadda hawsha korortay koror saa'ida samaynaysaa waa dhacaas isagana waxaan ku khasbannahay inaan istaraatiijiyadeena u isticmaalno awoodeena aan u isticmaalno ilaa xad awoodna dhignato barbarshimaale kaasi aanu meesha uga saarnayn isagana wuu socdaa waxaan idinka qaadaya marka kan uu soo dhammaado inaan idiin soo bandhigno howlgalkii halka uu ku dambeeyey iyo tirakoobkooda rasmi ah kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliiska soomaaliya sidiiq aadan cali doodishe oo ii warramayey halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee b b c b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag dhegaystayaal wararka inoo soo socda waxaa ka mid ah ururka jaamacadaha soomaaliya oo xafiiska canshuuraha ee degmooyinka gobolka banaadir ku eedeeyey handadaad iyo xarig loo geystay qaar ka mid ah macallimiinta iyo howlwadeennadooda balse marka hore mandheera
dowladda kenya ayaa ka digtay in 3 ismaamul oo ku yaala waqooyiga dalkaasi ay khatar ugu jiraan macluul sababa la xidhiira roob yari markaasi ka jirta deegaanadaas wasiirka horumarinta ee dalkaasi ayaa sheegay in ismaamulada marsabit turkana iyo mandheera ay haatan halis ugu jiraan abaaro iyadoo qowmiyadaha xoolodhaqatada ahna ay xoolahoodii u dhinteen abaaro ba'an oo halkaasi markaasi ka jira haddaba si aan markaasi wax uga ogaano diyaargarowga ay mandheera ugu jirto macluusha laga digay ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay xuseen maxamed caliyow oo ku magac dheer xuseen weli oo ah madaxa hay-adda la dagaalanka abaaraha khadka telefoonka ayuu igu warramay waa mahadsan tahay horta mandheera abaara badan ayaa ka jiraan waktiga xaadirka roob yaris ayaa keentay saad og tahay mandheera webi ayaa maro webigaasa waxaa webi mataqaana oo markasta bii wadama waa seasonal river ayaa la dhahaa daawa river marka meelaha wax xun oo hadda abaara ay saameen waa mandheera north mandheera south ilafe iyo kutulo sub county meelahan roobkii aad ayuu u yaraa awal waxaa loo guri jiray banas iyo takaba meelahaas hadda loomana gurin waxaana keentay khilaafaad ayaa jiro oo qabiilada kumeelkeeda ka dhex jiraan sida ayaa loo guri waayey marka si badan ayay u saameeyeen sabcountation aan ku sheegay xuseenow dowladda kenya waxa ay sheegtay in xoolodhaqato badan ay abaarta uga dhinteen xoolahoodii marka dhibta dadkaas xoolodhaqatada ah ilaa iyo hadda soo gaartay intee la eg tahay dhibaatooyin badan baa soo gaareen saa og tahay awal reer guuraha xoolaha marka intay abaara soo gari waa geli jireen hadda waxaa suuqlaan baa jirto suuqlaanta waxaa keentay cudurkan la dhaho covid-19 marka boqolkiiba 70 xoolo badan ayaa ka dhinteen awal dowladda cawdo badan ay siin jireen hay'ado badan ayaa wax qaban jireen hay'adahana waxaa waaye movementkii meelihii la aadi jiray hadda waxaa waaye ma jiraan dowladda waxay keentay in mataqaanaa oo traveling advisory oo la dhaho hay'ado badan ay tegi karin mandheera cabsi sida security sida cudurkan saas daraadeed marka waa loo fidin waaya caawimaad badan waa tahay digniintan la soo saaray ee ah in deegaanku uu khatar ugu jiro in abaartu ay ka sii darto maxaa diyaar garow ah oo aad ka samayseen annaga horta sida hay-adda dagaalanka abaaraha oo loo yaqaano n d m a badanaa waxaan qabanaa reer guuraha waxaan u sheegnaa waxa la information sharing waxaan dhahnaa bishaan roobku waasaan bishaan wixii wax kasta u sheegnaa meelaha mataqaana ay ka helaan biyo iyo bakeel u sheegnaa marka say meelaha aadi karin waxa la dhaho caawimaad aan bixino jiro la dhaho xanka septinet cash transfer lacag cash transfer aan bixinaa oo bacdal 2 bilood kasta aan bixino 5,400 oo la siiyo 22,000 oo qoys oo Mandera County ah maxaa gurmad ah oo aad u fidiseen dadkaasi ay abaartu saamaysay gurmadka kow aan fidinay waxaa ka mid a lacagtaas waan bixinay iyo mataqaanaa informationkan la sheeganay hay-adaha qabto midda kale midkii la dhaho county steering group aan isugu yeernay waan u sheegnay mataqaanaa abaara ay ka jiraan si mataqaanaa dadka meelahan oo hay-adaha joogaan oo mandheera ka howlgalaan meelahaas ay ka fidiyaan caawimaad soo mataqana dadka la caawiyo ceelasha mataqaana biya laga helo oo shidaal la siiyo sa ceelashan reer guura markay imaadaan say lacagta ay qabin ay ceelahan 24 hours shaqeeyaa shidaal la siiyo motorada daha laabaan filterka looga bedelo si mataqaanaa ay reer guura lacag la weydiin maadaama ay lacag la-aan haysato dabcan waxaan la soconnaa in abaartu ay ka kooban tahay biyo iyo baad la'aan marka laga soo tago baadka iyo naqa ama daaqa maxaad biyaha dhankooda ka qabateen oo dadka reer guuraaga ka mas-uuliyiin ahaan meel ay biyo ka helaan ama ceelal ma u qodeen ceelalka shaqadaas county government askale annaga markii abaar la soo galnaa taasna waxaa warar badan aan qodnay si mataqaanaa ay reer guuraha ay biyaha ka cabaan wararkaasna waxa meelo badan aan la tegi karin khilaafaad badan ka dhex jira reer guuraha maadaama hadda dadka degan dhinaca lafe ay aadi karin baarisa kuwa reer baarisa aan lafe soo aadi karin markay soo imaan karaan midda kale aan ka hilmaamay aan rabaa kuu sheego oo roobka yariiska dayay daaqi yariis oo meesha oo kasoo baxay waxaa eber ka siiyey wax la dhaho ayax inaad naqshamaa qaadno ayax ayaa ka imaaday dhinaca ethiopia soomaaliya soo maray wixii hal mar daaqii soo baxay hal mar eber ka siiyey marka reer guuraha marka ayaxaas dhaawac badan buu soo gaarsiiyey wixii yariis oo xoolahooda ay ku barbixi lahaayeen ayaxaas eber ka siiyey waa tahay ugu dambayntii abaartan way soo noqnoqotay gaar ahaan deegaanka mandheera waa ku soo noqnoqotay maxaa ku gaara marka loo eego gobollada kale ee soomaalidu ay degto saad og tahay mandheera waa deegaan oo soomaalida ay deegaan oo reer guura u badan yihiin waa dana deegaan markuu mataqaana markas abaar ay ka dhacaan waxaana yeeshay waa meel oo mataqaana oo abaar weligeeda jir jirta hadda waxaad bilowday maahan marka reer guuraha markay abaaraha dhacaan waa guuri jireen qaar waxaa jira soomaaliya qaar etoobiya ka dhex jireen qaar dhinac kale soo jireen marka meelahaas kulli lama aadi karo waa la cabsan dhinac waxaa looga cabsanaa khilaafaad dhinac waxaa looga cabsanaa mataqaana abaar la-aan maxaa la biyo la-aan iyo mataqaana daaq la-aan dhinac waxaa looga cabsanaa mataqaana cudur inuu ka jiro marka awal reer guuraha meelaha ay u barbaxana aadi jireen hadda laakiin ma aadi karaan sida mataqaana waxyaabahan kaaga sheekeeya oo sida cuduradaas sida mataqaana khilaafaadka ay xoolahooda u geeyi karin meelahaas oo barbixitaanka kaasi waxa uu ahaa xuseen maxamed caliow oo ku magac dheer xuseen weli oo ah madaxa hay-adda la dagaalanka abaaraha ee dalka kenya khadka telefoonka ayuu iigu warramayey haatanna muqdisho
ururka jaamacadaha soomaaliya ayaa xafiiska canshuuraha ee degmooyinka gobolka banaadir ku eedeeyey handadaad iyo xarig loo geystay qaar ka mid ah macallimiinta iyo howlwadeennada kale ee jaamacadaha magaalada muqdisho ururkan ayaa sheegay in howlwadeennada xafiiska canshuuraha degmooyinka gobolka banaadir oo ay la socdaan ciidamo hubaysan ay tageen xarumaha jaamacadaha si ay markaasi canshuur uga qaadaan arrintaas oo uu sheegay in ay tahay sharci darro waxa uuna ku doodayaa in uusan jirin sharci ogolaanaya in jaamacadaha laga qaado canshuur arrimahaas ayaannu ka waraysanay dr maxamed maxamuud xasan oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir waxa uuna markaasi ka warramayaa cabashada ay qabaan cabashadeena waxay ku saabsan tahay dhibaatooyin la soo dartay jaamacadaha dalka oo runtii ah hay-ado waxbarasho institutional ah oo runtii kamida mataqaana hay-adihii dalkan soo badbaadiyey waktiga dheer la soo geliyey oo ka shaqeynaya siday u kaalmeyn lahaayeen dhalinta soomaaliyeed uguna soo bilaaya mihinado waxbarasho iyadoo arrimahaasi ay ahayd inay abaabulaan oo qabtaan dowladda soomaaliyeed maadaama dowladeena ay tabar yarta iyo waxay aqoon-yahano soomaaliyeed u istaageen in arrintaasi ay qabtaan iyadoo arrintii ay qabteen oo kasoo shaqeeyeen oo meel fiican soo gaartay maanta ay sugayeen in loo sameeyo cawad celin ama mataqaanaa motivation iyo support loo sameeyo ayaa waxaa timid in loo adeegsaday ciidamo hubaysan loo soo diray xarumihii waxbarashada ee qoryo la soo galeen dadkii ku tahdiideen ay dhibaato badan ku sameeyeen marka idinku gebi ahaanba waad ka soo horjeedaan inaad canshuur bixisaan oo islamarkaana waaxda canshuuraha aad macluumaadkiina u gudbisaan maya canshuur maahan canshuurta waxaa lagu bixiyaa nidaam iyo sharci baa lagu bixiyaa waxaa lagu bixiyaa inay jirto nidaam lagu qaado canshuurta so hadda nidaamkii ma aha waxa la idinka codsaday inaad soo martaan oo dhowr bilood ka hor la idinkala fadhiistay annaga marna lama fadhiisan mana aanan la kulmin waayo sababta waxa weye annaga waxaan nahay bah waxbarashaan nahay waxbarasho canshuur laga qaada weligay maan arkin wax nagala hadlana ma jirto nidaamku waa in la marsiiyaa sharciga dowladda baarlamaanka la marsiiyaa baarlamaanka ay ka doodaan baarlamaanka ay ansixiyaan lagu soo saara dikreeto madaxweyne weye arrintaas ilaa haddana ma jirto sharci u degsan soomaali oo mataqaanaa qeexaya in canshuur laga qaado bahda waxbarashada ama macalimiinta meelay ka jirto caalamka ma jirto waxbarasho ayadaa la taageeraa waxaa lagu taageera dowladaha ee dhaqaalaha leh ee awoodda leh waxay ku horumareen waxa weeye taageeridda la taageero waxbarashada soomaaliya maanta waxaa la yidhahdaa waa meelaha ugu hooseeya dhinaca waxbarashada waxaana sababaya waxa weye taageeri la-aanta waayo tiinbari waxbarasho waxaa taageera dowlad ayaa taageerta oo u garab istaagta oo gacantiisa si kor loogu qaado aqoonta dhalinta soomaaliya loogu qaadi lahaa arrimahaas iyadahay marka dowladda ayaa laga rabay inay wax ku bixiso ay ku taageerto ma ahan waxbarashada ganacsi ma ahan meel mataqaanaa warshad wax soo saarta ma ahan markab xamuul qaadaya ma ahan waa dad la dhisahayo oo lagu taageerayo waxaana u taagay dad soomaaliyeed oo aqoon-yahanaa oo iska mid ay waajib iyo xuquuq dalka uu ku leeyahay inay ummadooda u gargaaraan dadka wax baraan idinku jaamacadaha lacag baad ka samaysaan marka maxaa diidaya inaad canshuurta wax ka bixisaan arrintaasi waxa weeye waa warku turkuteena weeye jaamacada wax lacag laga sameeyaa ma jiro jaamacadu waxay taageeraan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed wax kasta jaamacadda ugu yar bil sanad kasta waxay dhigtaa 100 ilaa 200 scholarship ayay bixisaa dadka danyarta lagu taageerayo jaamacadaha dhibaatooyin badan baa soo wajahay culeysyo badan baa ku yimid ilaa hadda marka jaamacadaha wax laga sameeyaa ma jiraan nin qofkii waxba laga sameeya isaa laga rabaa inuu ka keeno meel ilaa hadda looga sameeyey ama wax looga qabtay midna ma jirto waxbarashada asadka ay leedahay waxa weeye waa dad bay soo saartaa arrintan wasaaradda waxbarashada ma ula tagteen oo wax ma ka og tahay wasaaradda waxbarashada waayo waan kala hadalna waa u sheegnay horaan ugu sheegnay wasiirka uu ka hadlay warqad baa lasoo qoray wuxuu yidhi ilaa aan ka aragno arrintan ayaa loo jaamacada arrinta iyadoo la sugaayo in laga wada hadloo la suubiyo ayaa maanta waxaan ardayoo la keenahayo oo ciidamo loo soo diray oo dadkii macalimiintii iyo shaqaalihii jaamacadda la handadahayo qoryo lagu qabtay la waday la geeyey meel xabsiya ay xirnaayeen saacad 12 saacadood waxay ku xirnaayeen aan la garanayn marka idinku hadda maxaad xal u aragtaan oo aad doonaysaan in laydiin sameeyo annaga waxaan u aragnaa waxaan nahay dad mutadawiciina oo ummadda u gargaarahaya oo dalkooda dhisanaya oo ka qayb galaya in dadkaasi danyartahay wax u shaqeeyaan suudiyaan dowladda waxaanu ka rabnaa inay la timaado ee cadeyso mowqifkeeda jaamacadahan arrintan dadkan oo dad aan ka warqabin oo iska soo fikerhaya xaaladda aan samaynin oo ku oranay ajaanib baa idiin shaqayso wax ajaanib dalkan yimaado ka shaqeeya ma jiro macalimiinta joogta waa macalimiin soomaaliya macalimiinta ka shaqeysa dadka waxbaraya waa macalimiin soomaaliya ayadoo dhibaato ay la daalaadhacayaan ay mataqaana suubinaya macalinka soomaaliga maanta wuxuu isku maraa dhowr jaamacadood si uu nolol maalmeedkiisa uga helo uga shaqeynaya kaasi waxa uu ahaa dr maxamed maxamuud xasan oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir oo u warramayey samiira cabdilaahi jaamac dhanka kale waxaan la xiriirnay agaasimaha waaxda canshuuraha muxiidiin xasan jurus oo sheegay in ay khasab tahay in canshuurta ay iska bixiyaan jaamacaduhu
anagu wasaaradda maaliyaddu waxay xul saaran tahay gaar ahaan canshuuraha beriga dakhligu waxay xul saaran yihiin aruunta dakhliga soo xoreynta canshuuraha iyo waxa la halmaalo marka jaamacadaha Soomaaliyeed waa la kulanay shiran ayaan u qabanay shirkii haddii aan qabanay waxaan u sheegnay waxyaabaha waajibka ee laga rabo jaamacadaha anagu waxaan ka duwanay waxay tahay canshuuraha ku waajibo shaqaalaha iyo macallimiinta iyo maamulka oo la bixinayo dal kasta ay bixiyaan oo qofka salary ay u siiyaan waana waajib qaranka Soomaaliya yaallo waxaad ogtahay jaamacadaha oo shaqeeya macallimiin iyo maamulo isugu jiro ajaanib iyo Soomaaliba marka dhamaantood Soomaalida iyo ajaanibta waxay u dhacaysaa si siman ay ugu dhacaysaa canshuurta aniga kula hadlayo waxa la yiraahdaa canshuur musharkiga waa la canshuuray cad kasta Soomaaliya in badbaadin oo dalka Soomaaliya ka shaqeysana ima dal kasta oo joogto ka shaqeysana waxa ku waajiba canshuurta iyo nidaamka sharciga in raacdo marka ma jirto canshuur laga rabo si gaar loo rabo jaamacadaha laakiin nidaamka ayaa waxa dhigayo cid kasta bilaaadniya dakhliga uu soo galo dalka gudihiisa ka soo galo inay bixiso canshuurta lagu leeyahay waajibka cabashooyinkooda iyagu waxaa ka mid ah in aad ciidan soo adeegsateen marka hanaan kale oo aad martaan oo aad oga qaadaan canshuuraha lagu leeyahay ama laga rabo ma jirto miyaa waa maasantahay walaashay sida bacdaal magaca canshuur waxa ka shaqeeyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo saraakiil ciidamo oo la shaqeeyo canshuuraha oo leeyahay tumbataria oo international oo meel kasta mataqaana adduunyada meel kasta waxa la shaqeeyo hay'adaha oo canshuuraha marka anaga waxaan la shaqeeyo booliis la yiraahdo booliiska turbatariyada oo ilaalinta canshuuraha iyo dakhliga dalka marka waa isla shaqeynaa waxaan rabaa inaan ku sheego muddo ay kasoo wareegtay 8 bilood ka hor ayaan u dignay jaamacadaha oon warqado siinay oon dukumeenti u gudbinay oon u gudbinay waxyaaba laga rabo inay xafiiska yimaadaan inay wasaaradda yimaadaan inay xarumaha canshuuraha yimaadaan soo la gudbiyaan liiska iyo mushaaraadka shaqaalaha ka shaqeeya jaamacad kastaba ayaan weydiinay waan u dirnay dabcan waxaa laga yaabaa cid kasta ay canshuur diido canshuur waajibaadka uu leeyahay ka wareegtana waa in la dalbaa oo la keenaa si kastaba noqotee marka anaga ciidan kale maaha laakiin waa ciidanka la shaqeeyo inbaa xil saaran oo waajibkooda uu yahay inay ka shaqeeyaan canshuuraha iyo dakhliga soo xorintooda ururka jaamacadaha waxay sheeganayaan in daruufo adag ay ku soo shaqeeyeen haatanna daruufo kale ay wajahayaan oo uu ka mid yahay cudurka COVID-19 marka idinku waaxda canshuurta qaada ahaan ma u eegaysaan daruufahaas ay ku shaqeynayaan ee ay sheegeen anagu number go'an oo weydiinay oo hadda intaas aadan dhiibina waa dingal gashan aan la dhana ma jiro waxaan weydiinay cid kastaba cidda u shaqeysa ee mushaarka ay siiyaan oo gacantooda ay mushaar ku siiyaan ayaan weydiinay waana xaq haddii aysan jirin cid ay wax siyaanna laguma laha laakiin waxaa muhiim ah in information la isla wadaago jaamacad kastana inta u shaqeyso oo hadda waa ogtahay jaamacada way furan yihiin way shaqeeyaan macallimiinta way tagaan maamulka way tagaa marka anagu shaqada waxaan weydiinay wax ku xiran waxay qabanayaan haddii ay jaamacadda xiran tahay ay soo shaqeyn baa u xirata COVID-19 baa si kale ha u xiraato anagu waxa ma weydiinayno mana weydiinayno ilaa ay laga furo laakiin anagu waxay ku xirantahay activitygooda iyo shaqadooda ay qabanayaan ay ku xirantahay waxaan weydiinay waana wax sharciya oo legal ah oo dalka Soomaaliya u yaallo shuruucdiisa iyo arrimihiisa kamid ah marka anagu waxay cabashadooda waxay ku salaysan tahay inaan hore loo socon oo wax dhiibin marka taasna dalka dowladda uu leeyahay horumar ka jiro dowladdu hadda aysan canshuur qaadin hadda ma dhaqan karto marka naxariista ugu badan iyo xurmada ugu badan iyo soo dhaweynta ugu badan waxaan siinaa jaamacadaha iyo bahda waxbarashada iyo caafimaadka inaan siinaa saas darteed hadda waa laga maarmaan in bixiyaan waajibaadka lagu leeyahay canshuurta idinku marka howlgalkii aad qaadeen ee dadkan ka careysiiyey ma wuxuu ahaa in ay soo gudbiyaan liisaska iyo dadka ay mushaharaadka siiyaan mise in ay canshuurta iska dhiibaan bal intaa noo kala bidhaami sida raba markaad hesho information markaad xog hesho ayaa qofka lagu dalacaa waxa laga rabo waxaa weydiinay liiska shaqaalaha u shaqeeyo iyo maamulkooda dhan cidda la salary ka qaadato jaamacad kastaba ayaan u dirnay liiskooda iyo inta ay qaadato mushaarka cadadkiisa intay qaataan inay noo soo gudbiyaan kadibna aan ugu dalacno baan u dirno waxay inta ku waajibtay waxaa jira sharooc oo dalka uu leeyahay mushaarka ku siman 200 waa free canshuur la'aan waaye qofka hadduu qaato matalan $500 waxaa laga canshuuraa $300 kaasi waxa uu ahaa muxiidiin xasan jurus oo ah agaasimaha waaxda canshuuraha BBC-da ayuu u warramayey dhanka kalena dhegaystayaal maamulka gobolka banaadir ayaa beeniyey in ay canshuur ka qaadaan goobaha waxbarashada afhayeenka gobolka banaadir oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in wax canshuur ah aysan ka qaadin jaamacadaha wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana kooxda Everton ayaa tababarihii hore ee Liverpool Rafael Benitez u magacowday tababarahooda cusub 61 jirkan reer Spain ayaa kooxda u saxiixay qandaraas soconaya muddo 3 sano ah aad baan ugu faraxsanahay kusoo biiritaanka kooxda Everton ayuu yiri Benitez waxa uu markii ugu dambeysay maamulayay koox ka tirsan horyaalka Ingiriiska oo Premier League ka ciyaari jirtay kooxdaas oo ah Newcastle United isagoo ka tagay bishii June ee sanadkii 2019 waxa uu markaasi kadib aaday Shiinaha si uu u maamulo kooxda Dalian Professional FC
wuxuuna isaga tegey bishii janawari kadib markii uu muddo 18 bilooda uu kooxdaasi joogay. dhanka kale xalay waxaa dhacay kulanno aad u xiiso badnaa oo dhex maray xulka Ingiriiska iyo Jarmalka waa tartanka Euro 2020 kulankaas oo markaasi ka tirsanaa wareegga 16aad ee tartanka qaramada Yurub ee Euro 2020 kaas oo markaasi loogu gudbayay wareegga rubac dhamaadka ama quarter finalka. Ingiriiska ayaa 2 uga adkaaday Jarmalka oo markaasi iska xaadiriyay wareegga ee markaasi ugu dambeeya ee tartankan. idaacaddii ay soo saartay Kawthar Maxamed Cabdullaahi ee dunida iyo maantana waa naga intaas. nabadgelyo. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.